shacabka la kala fogeeyo waxaan yiri been fakatay run ma gaarto markii propaganda iyo been iyo wax aan jirin lagu celiyo shacabkii rajadooda hoos yaa loo dhigaya wala qalbi jabinaya sharciga ee shacabkii ilaa been iyo propaganda iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan xaqiiqo ahayn taasa waxay keentay shacabkii iyo dawladii in la kala fogeeyo taasa waxa keentay shacabkii in dawladoodii ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dawladii lagu dhagan yahay 4 sano ee ku dhameystay waqtigeedii iyadoo waxba qaban oo lagu dhagan yahay oo isdifaacaysa waxaan idin sheegayaa xaaladda dagaalan ku jirno naga bixin mayso waxa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cid u naxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dawlad u shaqeeyo inuu shacab aan kala jeclayn cadawgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan isku soo noqon annaga dhexdeena propagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira propagandada beenta oo ciidamadii qalabka siday oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kaneecada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkan ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno annaga waxan ogolaan mayno dalkan dib buu soo maray dibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshan taagannahay waxaan taagannahay in dalkeenni uu ka liito wadamada Afrika oo dhan uu ka liito annagoo la og yahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la og yahay dad active inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan nagu yareen aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yar oo dalay ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhex galin qabiil dhex galinaysa ummadda Soomaaliyeed way ka kortay hawshaas annagoo xaaladaas adag annagoo ku jirna wixii dhacay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran waxay noo dhashay musiibadaas qaran midnimo qaran ayay noo dhashay waxa taas ay ka turjumaysaa markii aan halkan isugu yeernay dawlad goboleedyadii oo aan muddo fadhinay oo aan ka wada hadlaynay dalkan sidii looga xoreyn lahaa qolooyinkan horarka ah oo nabadiidka oo shabaabka ah oo aan ummadeena u naxaynin waxaan gaarnay musiibadii dhacday inaan midnimo qaran u bedelno oo aan ku midowno oo